xarun cusub oo lagu talagalay jirdhiska ayaa laga daafuray xaafadda Seybiano degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Jimkan oo lagu magacaabo ANA Gym ayaa ah xaruntiisii lixaad ee lagaga furo magaalada Muqdisho. Goobtan waxaa yaala oo lagu soo dhameystiray dhammaan qalabkii loogu talagalay in lagu dhiso jirka, iyadoo leh qaybo kala duwan oo loo diyaariyay ragga iyo sidoo kale dumarka. Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed waa maamulaha qaybta ANA Gym xaafadda Seybiano, waxa inoogu warbixiyay furitaanka xaruntan cusub. waxaa aad farxad noo ah inaan furnay maanta xaruntii lixaad oo aan ka furnay Seybiano. bulshada ku hareeraysan Seybiano, reer Madiino, reer Banaadir, dhammaan reer Muqdisho aad buu u fiirin yahay jimkan. waa jim baaxad weyn mar kale waxaan leenahay ku soo dhawaada xarunta Macalin Jirdhis. aad bay farxad noo tahay, anagana waxaan farxad gelinay inaan jimkan furno. Ismaaciil Maxamuud Jaceylow iyo Caaisha oo qayb ka ah macallimiinta jimkan ayaa fariin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. maanta waxaan joognaa xarunta lixaad ee gym anigoo macallinkii iyo macallimiinta garbeega taagan. maasha Allah, alaab tayo leh iyo macallimiin tayo leh. walaalayaal oo furaya sabtiga insha Allah. welcome, ha soo dhawaado. dhalinyarada waxa u diray la fariin walaal caafimaad loo wada guuray, gym loo wada guuray, laga soo qayb galo. maasha Allah, soo dhawaada. aad ugu faraxsanahay inaan halka iskugu imaanay, annagoo iskugu imaanay inaan daafurano jimkeena baaxadda weyn, quruxda badan, aadna loo qalabeeyay. intaa kadib jimka muhiimadda jimka horta inta badan dadka kama dhaadhacsano. dadka Soomaalida inta ugu badan khaasatan dhanka dumarka markii loo fiiriyo jimka muhiimadiisa kama dhaadhacsano. qofka markuu jim bilaabayo kale caqabado badan uu kala kulmaa inta ugu badan. dhammaan waxaa ku boorinayaa in ay jimka ka cabsanin, rag iyo dumar sida ay leeyihiin ay jimka imaadaan. Fahmo Xasan Diiriye waa mid ka mid ah macaamiisha jimka ANA Gym. waxay dareen farxadeed ka muujisay in goob kale cusub lagu soo kordhiyo xaruntani. waan ku faraxsanahay maanta qaybtan inoo laga furo. awalka hore aniga oo aadi jiray sayidka, haddana waan ku faraxsanahay in dariska la iiga dhigo. jimka waa wax fiican, caafimaad leh. aniga waxaan ka imaada 150 kiilo, hadda 100 kiilo maraya. aadaan ugu faraxsanahay jimka. dhalinyaradan waxaa ku boorinayaa inay imaadaan jimka, isdhisaan, qarash isgeliyaan. waan ku faraxsanahay imaada jimka. waa caafimaad. maamooyinka guryaha ka soo baxa imaada, hilibka la iska jar waa cudur. awalka hore ma socon jirin, mooto bajaaj iyo baabuur aan raadin jiray. laakiin alxamdulillah hadda liidaan lagu tagaa waana ooga soo noqdaa. alxamdulillah meeshaa raba luweegaan ku aadaa. marka waxaan iigu niishaa walaaley inaa kusoo dhawaatay jimkeena. ugu dambeyn, Cabdalla Shariif Xuseen waa maamulaha guud ee xarunta ANA Gym. waxa uu dhinaciisa ka hadlay xaruntan cusub ay soo kordhiyeen, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu furan yahay jimka ANA Gym xaruntiisa Seybiano. waxaa farxad inoo ah in maanta aan furayno ama xariga aan ka jarayno gym cusub oo magaciisu yahay Seybiano Gym House oo hoostaga ANA Gyms. ANA Gyms ayuu hoostagaa. xaruntan maanta inaan furno farxad gooni ayay noo leedahay. waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan. jimku inoo furan yahay. soo dhawaada macad jirdhis saxa. soo dhawaada agab tayo leh. soo dhawaada macallimiin tayo leh oo diyaar idinkula ah in xilli kasta iyo mar kasta ay idinka qabtiraan baahiyaha jirdhiska. waxaan leenahay soo dhawaada, jimku wuu furan yahay laga bilaabo maanta. xaruntan cusub ayaa noqonaysa xaruntii lixaad ee jimka ANA Gym ay ka furaan magaalada Muqdisho, iyagoo weli sii wada ballaarinta xarumaha jirdhiska.